وانكو سلام الداودة كسودو هقا أكاديمية فيديو عصب عاوي فيديو غا waxaan rabaa inaan kugu tuso bal ka waran hadii aad ka maaranto touchpad-ka aad ka isticmaalayso computer-kaaga iyo sidoo kale haddaad mouse isticmaalayso labadaba aad ka maaranto oo aad taleefankaaga ka isticmaasho computer-ka taleefankaaga ayaad qaab mouse ahaan u isticmaalaysaa oo aad wax walba ku qabsanaysaa haddii left click tahay haddii right click tahay haddii wax furu tahay haddii wax daawasho ay tahay dhammaan taleefankaaga ayaad actionkaas oo dhan ku samaynaysaa oo waxaad ka maarmaysaa mouse taleefankaaga adigoo isticmaalaya computer-kaaga isticmaalaysaa haddaba farsamadaas ayaan rabaa caaway bal inaan intii aan fahansanin aan ka dabageeyo ku soo dhawaada fiidiyogan cusub kulli waxaan filayaa in faa'iido badan ku leeyahay soo وهاجاك داودة إن واحد هروب جدا جرينا فيديوجا سي أنا سمعنا برامج كان كورجا صهدا لنا واحد نباهنا يعني هلنا أبليكيشن كله يقان الريموت موس إن هلنا يعني نباهنا هذا الريموت موس واحد كيجي باهي يعني التلفون كان أكوش برنا كمبيوتر كان أكوش برنا والواحد كور مرة أنا بقاب كتلفون كان أكوش برنا مرة كور الريموت موس عن كل فننا أبليكيشن كان بلاي ستور عن كل فننا كدنا قيبتس أكره إذا عن كور الدونا ريموت موس عن كور الدونا remote mouse kor ayuu ka soo baxay u jeedaa kadibna kaliya aad siinaysaa oo ku dhufanaysaa kadibna anigu uu degsan yahay oo hadhow open ayaan dhigi doonaa adigu halkaan aad install ka soo dhigi doontaa xagaag marka la soo degto wuu igu jira aniga waa kana qaybtan dhexe yaala kadib waxaan tagayaa taleefanka aan computer-ka aan tagayaa waxaan tagi doonaa browser ka soo ku kacsanaysaa kadibna waxaad tagaysaa halkaan remote mouse aad ku qori doontaa google-kaaga ama nooca doonta aad remote mouse ku qoro google-kaaga adigu remote mouse google ma ku qorato google-kaaga waxa ku soo bixi doona mid kan ugu horeeyo oo ah http://www.remotemouse.net ayaa tagi doontaa linkigana hoos ayaan ku dhigi doonaa description-ka ee kala dag kadibna linkigan u soo horeeyo oo ah www.net mouse aad ku dhufan doontaa iska ilaali ha gelin mid kale oo ha kala soo degin meel kale bahalkan okay kaliya marka aad siido oo wax yar ku wareego halkan ay ku keeni doonaa halkan marka uu ku keeno kaliya waxa dhigi doontaa get now aad click siinaysaa kadibna halkaan ay ku keenayaa computer-kaaga nooca uu yahay ayuu ku tusi doonaa haddii taleefanka isticmaalada dabcan mararka qaarna wuxuu ku soo taleefankaaga nooca uu yahay ma android ba ma iphone ba ma ipad ba ma android app ba ma mac ba ma mac dmg ba ma linux ba window marka click siido kaliya aad arka sida uu ku degayaa gudaha ayuu ku tagi doonaa markuu sidaa ku sii degayo kadibna open window ayaa dhihi doontaa oo ku soo furmi doonaa hadda aniga waa kana meeshkan ayuu ii yaala oo waad u jeedaa hagaag si markaan isugu xiro maxaan sameeyaa ugu horreyn waxaan ku dhufanayaa telefoonkeyga marka aan joogay aan ku dhufanayaa remote mouse-ka aan ku dhufanayaa kadib sidan ayuu soo bixi doonaa waa laga yaabaa inuu xayisiino badan ku soo saaro adiga balse sidan ayuu kugu soo baxaya sida markuu kugu soo baxo adoo halkan ku jooga taleefankaaga ayaad computer-ka aad tagaysaa kadibna remote mouse-kaaga ayaad double click siinaysaa double click markaan remote mouse-ka siiyo waxa yar inta geeskan bidix ka fiiri maxaa dhici doona double click markaan siiyo maxaa dhici doona okay waxaan sugaynaa double click markaad siiso oo ku soo bixi doona sidaan yarkaan ay ku keeni doona kadib waxaad taamo doontaa halka ay ku qoran tahay yes aad ku dhufan doontaa yes marka ku dhufato qaybtan bidix waxaan ka filaynaa nooga soo baxo markaas inuu nooga soo baxo sidaan kana kadibna okay aad iska leedahay kadibna halkaan bidix waxaan ka sugayaa markaas IP address ka sugaysa IP address-ka markuu ku soo baxo kadib IP address-kaas aad geli doontaa binary cream address-kan sugaynaa isaga ayaa ku soo tuuray waxa aad sugaysaa IP address-kaas ayuu ku soo tuuraya kadibna IP address-kan ayaad geli doontaa xageed gelinaysaa marka IP address-kaas IP address-kaas ayaad qoranaysaa kadibna waxaad gelinaysaa qaybtan waxaad ku dhufanaysaa plus-ka taleefankaaga oo koreeya ku dhufanaysaa kadibna connect by ID ayaad leedahay kadibna meeshan banaan ayaad geli doontaa IP address-ka markaas aad u baahan tahay markii IP address-ka meesha aad gelido kadibna yes ayaad dhihi doontaa oo okay ayaad dhihi doontaa kaliya anigu hadda uu diyaarsan yahay desktop-kayga uu yaala kadibna waa kaasa sidaas ayaan ugu dhufan doonaa haddii aan ku sidaan ugu dhuftay halkan ay ku soo furi doonaa computer-kaaga magaciisa kadibna computer-kaaga aad ku dhufan doontaa kadib maxaan sameyn doonaa marka kadib
teleefankayga meeshiisaan bannaan ayaan ka isticmaalayaa muuskii oo falaarta meesha dhex bartamaha qaybta dhexda bannaan hadda calaamada ku tilmaamaysa aan hayaa kadibna iyada ayaan farta meesha shaashadaas ayaan iska isticmaalayaa farta kadibna meeshaan doona ayaan tegayaa applicationka doona tegayaa muuska anaga haysta meeshaan doonaan tegayaa halkaan doono salaan sawirkan libaax oo kalaan rabaa inaan furo shaashadan laba jeer klik siinaya double click meeshaan ka dhigay shaashadan laba jeer ku dhufanaya kadibna waa ii furma waad aragtaa waan iska wataa hadda way ii furmay haddaan soo furo fiiri teleefanka haddaan soo furo madda ayaan joogaa ujeedaa shaashada dhexdeeda ayaan wadaa shaashada dhexdeeda ayaan markaas jiidaya shaashada dhexdeeda dhankaas u wadaa markaas okay waan iska xirayaa anigoo computerka teleefonkayga isticmaalaya iska xiraya waxaan sameynayaa right click iyo left click inta uu leeyahay oo hadda qaybtan aragtida hadda aan ku taabanayo muuska haddaan right click iraado waxaad arki doontaa sorry qaladayaan sameynay teleefanka ayaan afkiisa right click dhigi halkan aan teginaa kadibna right click ayaan leenahay ujeedaa kadibna waxaan leeyahay refresh ayaan leeyahay kadib left click ayaan sameyn karaa oo left click waa tana laba jeer ayaan ku dhufanayaa kadibna documentiga ayaa soo furmaaya saa doonta ayaad ka helaysaa drag and drop leeyahay oo drag and drop xagaan ka sameynaya iyadana drag and drop meeshaan ka sameynaya ku tusinaya haddaan rabo inaan jiido waa qabanayaa kadibna waan jiidayaa markaas kadib waan jiidayaa ujeedaa halkaas ayaan geynayaa kadibna halkaan ayaan qabanayaa left click ayaan qabanayaa kadibna waan weyninayaa eeg kadibna hoos ayaan imanayaa qaybta hoosaan imanayaa waan qabanayaa iyadana hoos ayaan usoo jiidayaa eeg soo argmaysid marka waxaan rabaa scrollkana rabaa inaan ku tusiyo marka fiiri waxaan isticmaali doonaa labadan geeskaas ayaan isticmaali doonaa falaarta aan marsiinayo geeskaas ayaan isticmaali doonaa waxaan sameynayaa marka hore oo imaaha click ayaan siiha kadibna ayadaan isticmaalaya fiiri markaan kor wada kor ayuu aadi hoos baan wada hoos u aadi kor baan wada kor aadi hoos buu aadi marka scrollkaas ayaan wax ka dhaqaajinaya scrollkaas aan farta kaga wadadaa videogan kaloo mar aan duuba haddaan qaybtan ka tusiyo xoogaa yar isagana waa daawo kartaa qaybtan meesha ku aadan hal mar ku tusinaa waa ka farta ayaan ku wadaya fartaas ayaad ku dhaqaajinaysa kadibna fartaas ayaad ku malaysa waxa doonta fartaada uga samaysanaysa sidaa awgeed muus dhawaad ka maarmaysaa markaas haddaba waxaan filayaa inuu videogan ku anfacay waxaana waan iska xirayaa videogan ku anfaca ayaan filayaa haddaan rabo banaanka una baxo maxaan sameynayaa falaartaas dhinaca caayarta ayaad dhig siinaysaa mar kale ayaad u celinaysaa banaanka ayaan ka allaa hadda awoodi ma lihi inaan ka maamulo muuska ka maamuli karayo ka dhexdiisa kadib haddaan rabo banaankan usoo baxaya kadibna teleefankaygaan imaanaya marka aan ku dhufto oo aan click siiyo oo halkaan aan imaado wuu igu jiraa click aan siinayaa bas keliya kadibna barta ayaan maamul kasii wadanaya oo ma baahni inaan mar kale IP address wax soo geliyo haddaba intaas ayaan kusoo koobaya casharkeennii waana ku salaamayaa daawade waxaan kuu rajeynayaa waqti kastoo aad joogtaba xilli wacan ayaan kuu rajeynayaa hada wabillahi tawfiiq maca salaama